magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa subaxnimadii hore saaka ka bilowday odaynta doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland. dadweynaha magaalada Laascaanood oo isugu soo baxay goobaha ay ka codeynayeen kuwaas oo gaadhaya 27 goobood oo ku yaala magaalada Laascaanood, iyadoo guud ahaan ay ahay 92 goobood oo ku yaala guud ahaan gobolka Sool. TV-ga caalamiga ee Somali News TV oo booqday goobahaasi ku yaala magaalada Laascaanood iyo nawaaxigiisa ayaa waxa uu soo wareystay isla markaana uu la kulmay dadweynihii halkaasi ka codeynayay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta, iyadoo maamulka gobolka Sool iyo laamaha ammaanka ay ka warbixiyeen xaaladda amni iyo jawiga uu ku socdo doorashadu. وبالعمتي waxaan joognaa magaalada Laascaanood si fiican baa loo bilaabay. Ilaah baa mahadle. waa soo waday goobihii wanaag baa lagu codeynayaa. wanaagsan baa suuqa loo taagan yahay. wax alla wax dhibaato ka dhacay ma jiro. alxamdulillaah ilaahayna gaarsiiyey maalintaas mahadle. way badan baynu sugnay. waxaa maanta farxad noo ah taanaa kuma shaqeeyo doorashada qaranka inay u bilaabatay codbixintii codeyntii si habsamiya. ummadda reer Laascaanoodna iyo gobolka Sool dhammaantiina ay goobihii wada furan yihiin, laga wada codeynayo, waqti aanu dib uga dhicin, wanaag iyo sharaf ay ku socoto, wax buuqayaana aanay jirin, nidaam loo codeynayo iyo habsami. marka waa ilaahay mahadii, aad baan ugu faraxsannahay. waxaan u mahadnaqaynaa dadka gartay inay sidaa u codeeyaan, oy ku codeeyaan hal cod iyo hal qof inay dhacdo. sharaf noo ah doorasho xor iyo xalaal ah oo intaa laga soo shaqeeyey, oo maanta Somaliland nidaam u dhismay lagu codeeyo oo caalamka la mid ah, caalamkana ka horeeya weliba, oo nidaamka la qaatay uu yahay iris scanning baa la yidhaahdaa Ingiriisiga. waa waddanka keliya ee maanta adduunka ku codeeyey in busha idaa laga sawirayo ku codeeyey een islaafina ku dhacayn ee musuqmaas ku haray ee ku gurasho ku hadhay. waxaanu ku jirnaa doorashadii madaxweynaha qaranka ee 5 sano soo socota gobolka Sool guud ahaan degmooyinkiisa iyo tuulooyinkiisa iyo ceelashiisa iyo kaanuunkiisa si toos ah ay doorashada saaka uga bilaabatay. wax dhibaato ah oo ilaa hadda doorashada ka jiraan ma jiraan, hadday tahay xagga nabadgelyada iyo hadday tahay xagga mataqaanaa qalabka iyo komishiga shaqadooda iyo hadday tahay xagga xisbiyada iyo hadday tahay goobjoogayaasha caalamiga si aad iyo aad wacan ay uga bilaabatay. ilaa iyo hadda saacadan aanu joogno oo 10kii ku dhawaadana wax ilaa hadda dhibaato oo la soo sheegay ma jirto. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ilaahay ka sokow komishiga qaranka halkan jooga sida wacan nidaamsan ka muuqato mataqaanaa sheeg mas'uuliyaddu u qaabeeyay qaabkii mataqaanaa loogu talagalay. waxaan u mahadcelinayaa ciidamada qaranka noocyadooda kala duwan, hadday yihiin bilayska, hadday yihiin ciidanka qaranka, hadday yihiin asluubta, hadday yihiin isgudda, oo iyaguna si wacan uga qayb qaatay. oo goob kasta oo maanta gobolkan ka mid ah oo ilaa 200 iyo xoogaa goobooda ilaalinaya amnigooda mas'uuliyadda qaaday. aad iyo aad baan u mahadinayaa shacabweynaha gobolka Sool, iyagana aad baan u mahadinayaa oo si degan oo nidaam ku jiro codkooda u dhiibanaya. waxaan leeyahay la shaqeeyo ciidamada amniga, waxaan leeyahay la shaqeeyo mataqaanaa shaqaalaha komishinka, waxaan leeyahay qof kasta si nabadgelyo codkiisa ha u dhiibto. waxa weeye ha ugu codeeyo musharaxa oo mataqaanaa uu rabo inuu codkiisa siiyo iyo mataqaanaa xisbigu doono. aad iyo aad baan saxaafadda u salaamayaa. aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay waxa weeye dadkii kaalalkii Laascaanood inay si fiican u qaadanayaan, si nabadgelyana ay u socoto, dadkiina ay safafkii ku jiraan. wax walba waxa ugu fiican waxa weeye nabadgelyada doorashadii ku dhacday, taasaana kuul weyna. marka aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay dadkii inay kaalalkii qaadanayaan, waxa la yiraahdaa diiwaangelintii ay gelayaan, ay codeeyeen, codkoodina si wanaagsan u socdo, si nabadgelyada u socdo. waxaana u dalbaa in nabadgelyada la ilaaliyo. nabadgelyada muhiima. midna waa qofku doono codka ugu ridayaa, qofna la khasbi maayo, laakiin waxa weeye in nabadgelyo ayna ku dhacdo muhiima. nabadgelyadina way socoto. alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. alxamdulillaahi rabbil caalamiin. maanta waxaynu u taaganahay in codka la bixiyo oo codka si nabadgelyo ah ilaaha raxmaanka waxaynu weydiisanay inuu si fiican ilaahay inuu ku rido nabadgelyo leh. dhalinyaradan waxaynu ku bogaadinaynaa iyo dadweynahaba inay codka si raganimo leh oo fiican ay u bixiyaan.
saaka aroortii 6 bay bilaabmatay si fiican bay u socotaa ilaahay nabadgelyada ay noo ku bilaabmatay hayno ku dhameeyo tilmaada Somaliland ee ugu tartamaya saddexda xisbi ee kulmiye iyo wadan iyo wicid waxaan rajaynayaa in si nabadgelyo ay noogu dhamaan doonto ummadan iyo madaqadana wixii ay dantooda ku jirto ilaahay subhanahu wa ta'ala musharaxiinta tartamaya kii khayr ku jiro ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda soo saaro ay danteedu ku jirto aadna u maasantay qoliyada saxaafadda waa ku maasantay